waddooyinka halbowlaha ee dhex mara magaalada baydhabo badankoodu waxa ay qabeen dayac fara badan mana helin mudnaantii ay lahaayeen wixii ka dambeeyey xilligii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed balse waxaa dib u dhiskooda u guntaday dadka deegaanka oo kaashanaya hay'adaha Samreb mayl araarto jidkan oo xaafadan laantan shanaad lan suubiyay muddo hor iyo hata farqi weyn aan dhaxeeya muddo hor jid oo bajaaj qaado mahayna boyd magaadan walba magaadan hatta qof hadii foorada hamiin mayl araay xaafado garba la ku biyay laakiin hata jidkan jid oo may waaye oo fiyaalan nagday oo badana oonka un hata xaafadan hayo badana boydo oo jidkan ay ka noolna bajaajaha mare ambalaas walba ninkooya markan jidkan ku faylan rajeen hoob ilaahay insha Allah jidkan suubadi kan awsee laanta shanaado yal ku suubi ilaa jidkan ma ku bahay baydhabo gudaha ku bahay warsaman dhool hagaade madaxtooyadii hore ha maray warsaman dhool hagaade laanta shanaad xaafadaan dhaxgaade ilaa qaxootiida anjeeda markii hore ma hayn wal jidla raaw jidba malka tilmaamo korn ma qof bini aadan ah lutiis marooshi dhabaay eedan dhabaay qofka marooshi lutiis dhabaay hatta alxamdulillah qofka hatta iska dhaafa cuuriyaanka soo baaskiil shay wado mare meel fadaw ka seede marne baawurta marahayte marne bajaajyada marahaya gaar dameerada marahaya hela la xilliga la fado la marahaya miigi maalan ma sha Allah magaali nagadi marka miyeeda marne hindisahaasi markii la meel mariyay hay'adda shaqadoon waxa ay bilowday tababaro iyo wacyigelin joogto ah oo ay u qabteen bulshada deegaanka intaas loogama harine hay'adda shaqadoon waxa ay qaadatay doorkeeda iyadoo ka caawisay dadka deegaanka furista akoomada dhaqaale ururinta dhismaha guddiga xilqaanka bulshada samaynta madasha maamulka mashaariicda dhanka arrimaha bulshada bulshakaab jidkaan micnaha oo xaafadan wadajir la ka dhisay hay'adda shaqadoon ma inoo caawiday tababaro ka saabsan qaabkii micnaha bulshada baasadan isku aruuri lahayd iyo qaabkii oo account furada lahaynay account marka oo qaabka furani ku dib hatan mayna nin tababaray qaabkii account baasada lan ka shabeelaa iyo processka isu maray anta soo dhan ma inoo caawiday hay'adda shaqadoon wacyigelin iyo baraarujin badan oo ay shaqadoon siisay bulshada xilligan waxa ay ku dhiiradeen wax wada qabsiga dhexdooda reer xaafada wadajir hadii unaana may cashar ay ku baranay ni wal la qabsada karo oo hadii la iska day ni wal la qabsada wal badan la suubi karo oo sida jididka oo kala ceelalka ilaahay kii rooya wal kasta oo mashaariic ah oo danta guud ah in la qabado karo hoob la iska day isku day la suubi jidka dadka beesada darsaday dadka walaahay dadkeen dhisina farqi weyn aan dhaxeeya tan beesada ka darsatay dhul aad la tacamalan ku nahaas hadii war heyd eeyna meel araay ku nahaas madii oo aad la qodqodaawna hata meelan qodqodi ma raasar laakiin hantadaano ka jarto una dhisani qeyba ku hayni dhismadana eedan ku nahaan hadii la qodaaw ee hadii oo la halaawna ku danqodaan in sheegan dadku jiirta qodqodaan badan ku la hadalaan isbedelka cimilada dunida oo sii xumaanaysa iyo roob yarida jirta awgeed dadka deegaanku waxa ay cabasho ka qabaan iyo yaraanta ka jirta deegaanka baahiyaha kale oo xaafada ku jaramay kumadaha sida jidid oo kale jidid badan oo xaafada oo sida hordhaan jidkin haay oo kale iyo jiraan may kala jiraan marne dhinac biyoyeen biyo walanka baahan yahay xaafada sida ceelalka oo kale waxbarashada caafimaadka dhinac kasta oo bulshada